marka anigu waa jeclaystay inaan la hadlo dadka haystay dumarka qaar kamida macnaha qaar kamida ayaan la hadlay oo wareystay oo ku waniyo maxaa idigu dhaxdhacay waxay ii sheegeen oo ila wadaageen inay isku dhaceen oo kala go'een oo macnaha kala teams noqdeen marka dad kala go'deen kala teams noqoteen kala aragti noqoteen oo kala daadateen oo mid walba gaar u danaystay oo in kasto istaqaanaba israacday maxaa keenay inaad isku soo dhaga hadashaan ama aad media iska dhaxaydaan maxaa keenay ila bulshada idigu xiran dad baa idigu xiran oo idi daawadee maxaa keenay why sabab taas weydiin mudan taa waxa weeye macnaheedu dadka wax daawadana waxaan sheegay macnaha dadka daawaday committee la wadaagaya bulshada idinku isku dirina dadka caankana waxaan u diray rag iyo dumarba macnaha taxadiriyaasha ugu yaraantii dumarku wax duubayaan ka wax ka duubaya waa nin xagga daba taagan oo macnaha jilayaasha on kamida adee laftigaaguba isku day markasta hadii aad ama isku aragti noqdo israaca ama kala aragti noqdo wada shaqayn haydiga dhaxaysa walaalnimada yaan leeyahay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنتوا عنا وناقصين أخير تقاليقا مركلة مقال عصوب إسكسون نقاش عسله وكم أسد يصيدوا كلا قدر كده غير نداونا يسوا يصيد وقت قاليقا نوجورتي هدي أداود نوجو عصوب تنحكى عسنة سنة كسودواتو سبسكرايب لايك شير كومنت الناس يزارتا أو مع سنتاي أوكي وهجاج هذا بقى أنت كدب هرتا الديدا واحد هذا جروبيسكا أما واحد هذا كوحها أد أي أدبدين معناها ما شرتو كوح أنت بسنتو weligeed sida ay u dhisantay u dhisnaata macnaha 6 bilood sanad 2 sano waxbay dhisnaadaan sax laakiinse koox kasta ay inta ay duruuf ku jiraan inta ay kala daadadsan yihiin inta uu mid kastaaba magac rabo way midaysan yihiin way isjecel yihiin way iskarab taagan yihiin laakiin maalinta kala go'aan ilaahow 6 biloodna ha qaadato sanadna ha qaadato 5 sanana ha qaadate maalinta ay wax isbidaan ama qaar kamid ay wax noqdaan ayaa macnaha ay kala wada dareeraan ay kala wada qobmaan ay kala wada daataan taas been maaha oo ay iduhuba ama lacag dhexdooda ha timaado ama qaar magac ay isbidaan oo laba qof ama saddex qof markay caan noqdaan labadaas dadkii kale ay ka soo dhax bixeen ay sanka u taagaan oo isku qalqaaliyeysiyaan Soomaalideena kibirkii isla weynaantu waa dhibaatayteeda leh metel tusaalahan dad tusaalahan ugu soo qaato anigu ha idinkan magac idigu dhex leeyahay idinkan wax idigu dhaxahay channelkayga dadka markasta committee qodob badan la wadaaga ayaa itusa inaan ahay macnaha qof bulshada magac ku dhaxleeynahay oo ku maadsati hadaba hadii aan marka aan soo galaado sidoo asxaabta qaaliga ah saarsan subscribe ka saar hadii kan la iska dhaafaba waa hagaag barnaamij baan wada digay la joogay inta joogtana way ga dareeraysa waxa kibirka iyo isla weynida raadana wax aad u qurux badan ma balse dadka duruufo un baa kala kaxeeya ama ha noqoto duruufo waayeed oo in waqtigu isku saamixi waayo oo qaar hada doonaan fanki iska badayaan ama qaar iska badayaan maxay ahayd riwaayadihii ama qaar iska badayaan shaqadii marka ay hayeen oo shaqo kale ka wanaagsan oo helo oo shaqadii shaqo kale uu kaga doorbida oo helo laakiinse badana isku dhacbay maada waxba yaraan hadal isku daalin waxa weeye sad ka wada haysan ariga Ingiriiska waxa jira dad badan oo jilayaala oo badta ku soo koobi kareen hadaan salaado tiri balse waxa jira فنانكي داوعمي فارح مرتيلة iyo laki xaaji sidoo kale farax kaftan fanaaniin jilayaal badan macal fanaaniinna ahde ayaa dhinac macnaha isku raacay in kamidii way isku soo hadheen sida foosiye ifka فنانكي isaga la soo dhaweeyay si fiican u garanaysaan oo jilaaga isaguna ah macnaha jilayaal iyo fanaaniin bay Ingiriiskiis ku tigay waxaan aragnay ma Abubakar Jaajumo macnaha aad bay u badan yihiin si fiican baad wada garanaysaan macnaha lama soo koobi karayo ninkii weynaa macnaha khatarta ahaa macnaha la oranayay booska jilaagii weynaa macnaha adigu laba qaybood ayaa loo kala jabay Farax Murtiile anyway gaar ayuu ka go'ay hadaba waxaan arkayay horta raggu waa ragun iyo horta isku madhaga hadlaan balse waxaan arkayay macnaha hadallo la isku tuurtuurayo oo macnaha aan hawlahoodu aanay saaloonayn ma qurux badna dadku haday yihiin dad caan ah magacna bulshada ku dhaxle inay macnaha isla tirsadaan ama media dhaga hadal ay isku soo dhaxmariyaan waan arkayay muuqaalo ay soo duubeen oo aanay u soo duubin bulshadooda oo aanay u soo duubin dooqahaantooda balse ay u soo duubeen qof walaalkii ah oo isku mihnad ahaayeen oo isku koox ahaayeen oo ay wada shaqeynayeen inuu macnaha dhaga hadal ama fariin u diro macnaha ma garan karo dhibaatada inta leeg ee keentay maanta in jilayaal dhan oo isku mihnad aha oo isku aragti aha oo isku group aha oo isku fikir aha oo isku si wax soo wada gudbinayay oo isku dareen aha oo isku maxay ahayd shaqo aha
inay kala go'aan oo ay kala qabqabmaan oo waliba markay kala go'een ay kala dhinac noqdeen inay isku soo dhaga hadlaan ama ay arrimo foofool xun ay isla wadaagaan ma garan karo arrinta keentay balse waxaan ka war haynaa oo aad u ognahay in aad loo soo dhaweeyay xaflad weyn loo qabtay Abubakar Jaajumo Abubakar Jaajumo macna markan xaflad wixiisu waa hade xafladay marsa xaflado macna waa loo heesay keega meesha loogu jaray isaga laftigiisa meesha waa ciyaarayay macna isaga qudhigiisa kama dareemin inuu yahay qofka la soo marti qaaday ama qofka runtii la soo dhaweynayay inuu yahay macnaha si dadka loo dhaqmayeen buu dhaqmay waa iska boodboodi waa iska ciyaaray meel ku socotay meel ka socotay lama garanay laakiin xafladda qiimaha badan ee la iskugu yimi waxa ay mid loogu talagalay ama loo qabtay ama lagu maamusay Abubakar Jaajumo كلي وقروح بدنان لهاyd Abubakar Jaajumo Faarax Murtiile jilayaal aad u fara badan oo macnaha aanan barta ku soo koobi kareyn inay meel inta iskugu yimaadaan si qurux badan xusoo wada jiraan aad baan jeclaan lahaa balse waxaan ka war haynaa adduunyada koox kasta macnaha in la ismagacaabo ma qurux badna laakiin inta kooxood ama inta qof ee aan isku bartay macnaha wax jiri jiray wax wada matali jiray wax wada qaadi jiray meel ka soo wada muuqan jiray dadka madadaalin jiray maalinta magac helaan ama dhexdooda arrin yar oo kale ay dhex timi ama adduunyaba dhexdooda ha timaado ay isku dhacaan ay kala go'aan ay kala qayb noqdaan tasorto way badan tahay weena jirtaa balse waa laga qurux badan yahay markuu walaalka magac yeesho markuu walaalka wax noqdo ma aha walaalkiisa kale uu madaxa kala horkacay waayo shan qof hadan ku wada socono mid kaayunba aad loo baranaya ama laba kamid ah aad loo jeclaysanaya saddexda kale nacna maaha ama saddexda kale in la nacamaha waxa qurux badan dadka walaalaha ahi markay isku aragtiyihiin ay shaqo wada wadaan macnaha ka caanka ahi inuu ka kala gacan qabto ka magac lahi ka kala gacan qabto ka bilaa magac ahi aanu isbuusin isiyasin oo ka kala gacan qabto ma qurux badna taageerayaal baad leedihiin bulshada idigu xiran inaad sidii macnaha googaalaysi shimbra waaqlayn hadal la isku turtuuris waxyaabaha inaad isla wadaagtaan aad iyo aad baan uga xumahay waan arkay dad badan oo ka hadlayana waan arkay balse anigu waxaan isjiruun maadaama dad caana yihiin adigoon hebel iyo heblaaye kale aanu soo qaadanin macnaha waa iska dumar waan iska garanaynaa balse waxaad soo ogaataan dumarnimadiina marka laga yimaado inaad tihiin dumar la jecel yahay oo jilayaal ah oo nagu qaaliya oon daawano oon jecelnahay oo bulsho daawato oo jecel yihiin oo bulsho u soo gudbiya ha isku dayina ama ha isku muuqmuuqanina idinku macnaha waxyaabaha googaalaysiga tirsiga media ha laga daayo macnaha media inuu ka dhigano guri ama qolal waa dhibaato inteeda leh meesha waa public waa media waxa yar aad tiraahdo ama dareenkeeda ama hadalkeeda ka soo baxaya waa la garan karaa halku ku aadan yahay ama cid uu qusay waa la garan karaa qofkii kalena uu soo duubaya marka eeg marna hasjiidanina macnaha taas waxay keenaysaa marka dambe in face to face la isku caayinta la kala soo istaago taasna dhibaato inteeda leh marka imka maalmihii ugu dambeysay ama sanadadii ugu dambeysay waxaan dareemayay inuu miiriyuhu noqday meel aad runtii looga cabanayo dadkuna aad ay uga boodsan yihiin laakiin xaaji horta fanaanad oo qof aan runtii kaftikeeda jecelahay si wacan foosiyeefka ayada laftigeeda sidoo kale waxa halkay komitixta loo soo qorayay oo foosiyeefkii mar ayaguna barnaamij yaro adigu macnaha khama yara sabaysanayaan ay cid kale ku yara wadeen macnaha in loo soo qorayay foosiyeefka waa gabadhii Laki Xaaji Wacays shaashadaha ka saartay Laki Xaaji Wacays markaad gashana waxaad arkaysaa qaar iyaguna sidoo kale soo muuboorinaya macnaha dadka la isku qooqiyo la isku dira taasina ayaan darin inteeda leegoy marka anigu waa jeclaystay inaan la hadlo dadka haystay dumarka qaar kamida macnaha qaar kamida ayaan la hadlay oo wareystay oo ku waniyo maxaa idigu dhaxdhacay waxay ii sheegeen oo ila wadaageen inay isku dhaceen oo kala go'een oo macnaha kala teams noqdeen marka dad kala go'deen kala teams noqoteen kala aragti noqoteen oo kala daadateen oo mid walba gaar u danaystay oo in kasto istaqaanaba israacday maxaa keenay inaad isku soo dhaga hadashaan ama aad media iska dhaxaydaan maxaa keenay ilaa bulshada idigu xiran dad baa idigu xiran oo idi daawadee maxaa keenay waay sabab taas weydiin mudan taa waxa weeye macnaheeda waa fahan la'aan macnaha wixii baan yara fahansanayn oo iyagu baa isku muuqdeen laakiin si wax yara ilaaween in bulshada dadku xiran tahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin dadka wax daawadana waxaan sheegay macnaha dadka daawaday committee la wadaagaya bulshada idinku isku dirina dadka caankana waxaan u diray rag iyo dumarba macnaha taxadiriyaasha ugu yaraantii dumarku wax duubayaan ka wax ka duubaya waa nin xagga daba taagani oo macnaha jilayaasha on kamida adee laftigaaguba isku day markasta hadii aad ama isku aragti noqdo israaca
ama kala aragti noqdo wada shaqayn haydiga dhaxaysa walaalnimada yaan leelaawin dadka idigu xidhanna dhagahayaan de ku tira ku teenta lagaga badbadin aad iyo baa maasantiin walaalkan halabar cawil bro idile bye bye